madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa u duulay dalka isutaga Imaaraadka Carabta kadib markii uu soo gabagaboobay shirka golaha mustaqbalka ee dhawaan ka dhacay magaalada Kismaayo. Madaxweynaha ayaa safarkiisa ku sii maraya dalka Itoobiya iyadoo aan si rasmi ah loo shaacin ajandaha uu u tagay Imaaraadka. Safarada uu ku tago Dani Imaaraadka ayaa sii xoogeysanayay sanadkan dhamaadka ah. Imaaraadka Carabta wuxuu xiriir dhow la leeyahay maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, xiriirkaas oo mararka qaarkood ka muuqda mid ka xooggan kan ay la leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya. Arrintan ayaa dhalisay eedeymo siyaasadeed oo ku saabsan fargelin u muuqata inuu ku sameynayo arrimaha gudaha iyo siyaasadda Soomaaliya. Xiriirka gaarka ah ay la leeyihiin madaxweyne Saciid Dani ayaa ah mid aan qarsooneen, waxaana Puntland ay inta badan ka heshaa taageero dhaqaale iyo mid ciidan. Taageeradan ayaa la sheegay inay qayb ka tahay iskaashi dhinacyo badan leh oo u dhexeeya labada dhinac. Imaaraadka Carabta ayaa door muuqda ku leh kaabayaasha dhaqaale iyo amniga Puntland, iyadoo gacanta ku hayo dekedda Boosaaso isla markaana qayb ka qaata tababarka iyo qalabeynta ciidamada BNPF ee Puntland. Sidoo kale diyaaradahooda ayaa qayb ka ahaa dagaalka buuraha Caalamiskaad.